بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مدحونا ku-xigeenka gobolka Waqooyi Bari, wasiirin geyd, wasiirada kale, marti sharafta meesha fadhida, halwadeennada oo ugu horeyso agaasimahooda warbaahinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta quruxda badan ee aad noo samayseen. waan idinka mahadnaqayaa. xilku waa meerto maanta anigu ilaahay iyo aniga dad adayga saaray oo mas'uuliyadda maanta qaaday. waxaan rajaynayaa insha Allah guulaha quruxda badan ee wasaaraddu gaadhay meeshii ka soo bilowday shalay wasiirku meel buu ka soo bilaabay, maantana meel buu inaan meesha ka sii bilowno oo insha Allah tacaala aan hore u sii wadno wixii karaankanaga ah. annagoo markaas halhayskanaga uu yahay hufnaan iyo hal abuurnimo, kuna dhiirigelin doona insha Allah tacaala ganacsatada yaryar inay dalka maal gashadaan oo isteedkooda maal gashadaan, qurba joogta waddanka ay imaadaan ay maal gashadaan insha Allah. ganacsatada yaryar la gacan qabto ay maaragtay loo fududeeyo wixii waajibaaday ee dawladda ama wasaaradda ay maaragtay ay ka leedahay si ganacsigan insha Allah tacaala u koro. idinka ilaahay waxaanu rajaynaynaa inaanu meeshaan quruxda badan ee maanta aan taaganahay aan kasii ambaqaadno, meel kasii qurux badan aan tegi doono insha Allah tacaala. warkayga intaas ku kooban yahay insha Allah tacaala. waadna mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi.